بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada meel kastoo adduunka aad ku nooshihiin waxaan rabnaa inaan qodobo badan taataabano maanta dowladdan maxaa ku horgadaaman maxayse u dhaqaaqi laadahay ileen dadka Soomaaliyeed ayaa iska leh anigu waxaan qabaa fikrad ah dastuurkii dalka in la dhammaystiro taas ayaa ugu weyn maadada ku horgadaaman inta kale oo ku horgadaaman oo ku xigta waxay tahay labada gole ee baarlamaanka ee rabaan dowladdii ay dhaleen rabaan shakhsiyaal fara ku tiris ah inay dan gaar ahaan ay ma arkin oo ay fushadaan ayagoo weliba adeegsanayo lacag shisheeye laga soo qaado waa nasiib daro waxaa ku sii gadaaman maamul goboleedyaasha oo aanan fiirihaynin gaar ahaan giiga Soomaaliyeed shacabka ku nool dantooda iyo maslaxadooda ayagoona matalaynin ee fiirinayaan kursiga ay maalintaas ay ku fadhiyaan waxaa dowladda ku sii horgadaaman siyaasi aanan aqoonin qaabka siyaasinimada loo matalo ee ahna qaab kambay aan hadda loo baahnayn ahna sharci darro ahna wax nidaam oo loo haasto una jirin dowladda waxay xaq u leedahay wax kasto qarannimada Soomaaliya ka dhan ah oo sida 14 Oktoobar oo kale lagu dilay dad Soomaaliyeed oo badan laguna tabayo lacag ajaaniba inay ka hortagdo dowladda xaq ayay u leedahay dowladda waxaa ku gadaaman dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay dantooda tahay na ilaashta marka ay saas tahay waxaad arkaysaa mararka qaarkood wuxuu sharcigeena yahay cadaaladda ma ku qotomaa waay federaalka aan qaadanay cadaaladda ma ku qotomaa haddii aan idin soo qaaso tusaale ahaan gobolka Banaadir waxaa laga leeyahay dana kala dugdugan oo badan iyo mid dowladda caqabad ku naqay intaba dowladda wuxuu caqabad ku naqaa maamul goboleed oo kale haddii loo aqoonsado gobolka Banaadir waxay naqaysaa caqabad ku gadaaman dowladda macquulna maaha laakiin haddii ay lamadi golo ee baarlamaanka ay ma arkinoo maadaama ay naga sii mudan yihiin labada golo ee shacabka ee dalka Soomaaliya oo dhan ay matalayaan siyaasiyiinta hortaagan ee farakutiriska gobolka Banaadir inuu maqaamkii oo caadiga ahay ummadda Soomaaliyeed ee isla falqayso oo dhan ay ma arkinoo la soo bandhigi lahay dadka 5 milyan oo heer Banaadirna ay ku qancayaan yaa hortaagan waay dad yar oo shakhsiyaal ah oo farakutiris ah oo dana gooniya kala danahaas maxay yihiin waay inay bacda iyo jajabnaashada iyo qashinka iyo habarta umusha ee 9 saaco habeenimo foolatay inay jidka ku dhiig baxday jidka ku dhimata halka jiran oo jidka ku dhintay isbitaal la'aan halka afduubka ma arkinoo maadaama ay kaaraan baray ilaa dhulkaanoo dhan ilaa waxara cadda baray ilaa darmoolay ilaa saan u daji ilaa godka daynil ilaa saas u gidi ceelasha biya ilaa garas baalley iyo saas xeebta ugu talaal waxaan ognahay in aynan ka samaynin istiraatiiji fiican oo ma arkinoo dadka dhan inay dowlad u tahay ay degta magaalada maadaama ay tahay magaalo madaxda caasimadda in la ilaaliyo la dhiso la nadiifiyo capital caasimo oo matali karaa oo noqdo laakiin inuu bacdaasi noqdo kadibna ay yiraahiin problemkan siyaasadeed ma arkinoo caasimadda Soomaaliya inuu sii badbato siyaasiyiintana ay ka faa'iideystaan dadka Soomaaliyeedna lagu kala qaybiyo hadii la rabo taas waa gooni
lamada golo baarlamaankii u taallaa baaqsi waxaan u dirayaa in dastuurka dalka iyo wax kasta oo kala qaybin keeni karo waa inay dhameeyaan ayaka ayaa loo wakiishay dhibka marka إن شاء الله تعالى خير أيكون غنيسا السلام عليكم